هذا كان هرتا وارنتا وجازة الصومالية قيامها أد باللغة هذا الهاي يتذكر بني عرمها الصومالية بقى. وهرتا لو حصل لنا كل شيء بجبلان مدة يسوي جرتي. مدة يسوي جرتي إن هذه مرحلة عدد يمد في عام بوالله صومالي. هذا واحد مدة حل كان مرحلة هو أبكيت إني كتير. جبلان واتي أغسطس ورشة شيء. ورشدي واتي أقوسي لواي أما لواي شريط دودي سوماليا لواي يشعب كرجي باللامبا سياسيين كلا عرفت دون باجستور رجي باللانا سياسيين كي وهذا على سياسيين وهايبة مدحوني هراء وجي باللان هي مدحوني هراء وجي باللان إلى كل شيء مقالة نيروبي إلى xildhibaan xidig iyo seeraar iyo madaxweyne hore Jubbaland Maxamed Xuseen inay ku heshiiyeen magaalada Nairobi ayadii lafteeda waxay keentay kala qaybsanaan ku timid nimankii la baxay isbedel doonka oo xidig iyo seeraar iyo aadan afay ay madaxda u ahaayeen siyaasiyiinta ku haybta ahaa madaxweyne hore Jubbaland madaxweyne la heshiiyeen كل كلام بينها كلام جبلان هانا أنت أسواق عبدالله واديين مركا لازم نرتو حاكم بحيسو السكاس إنه يهاي مثلات جود وجبلان إنه يهاي بماشي كبحيسو أنا أقول واقبة إنه سنحين مثلات رسمية وجبلان إنه سنحين تقصي أصلا فهمان بعض الطبع بنك كلا شركي كرمضة مدوي قيالتي أمريكانكا وحكى على شركي كرمضة مدوي سوماليا وقابل سنة iyo madowga Afrika ninka jooga Soomaaliya arrimaha amisom xaqiiqadii labadooda si fiican baa u dhageystay ummadda Soomaaliyeed iyo Jubbaland doonaysa Jubbaland loo dhan yahay in la dhisaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madowga wakiilka madowga Afrika Soomaaliya deer aad baan ninkaas ugu mahadnaqaynaa xaqiiqdii waxaan leenahay arrin diil u ah Soomaali weyn ayuu ku hadlay arrin hiil u ah shacabka reer Jubbaland iyo xasiloonida Jubbaland hiil u ah ayuu ku hadlay xaqna uma laha in lagu dhaliilo arrintaas xildhibaan xidig ayaa hadlay shaba wuxuu ka hadlay arrintaas inay dambi tahay ayuu ka hadlay waa ka xumahay xidig waa nin siyaasi oo rugcada ah oo Soomaaliyeed waa xildhibaan qaran hadda waa siyaasi u taagnaa inuu hoggaanka Jubbaland qabto inuu asaga iyo madaxweyne Axmed madaxweyne hore Jubbaland iyo seeraar inay siyaasiyiin isku jifo oo heshiiyey inay yihiin in la sheego inuu u arka dambi aad baan uga xumay arrintaas seeraarna waxaan lahaa meeshaas uu ka fog yahay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa hadalkii ka soo yeeray wakiilka midowga Afrika Soomaaliya u fadhiyo kursiga qaramada midowga ka sheegay ama shirkiga qaramada midowga ka sheegay waxaan rabaa inaan kuu sheego kala aragti duwanaanta waa wax mar walba imaan kara laakiin xaqiiqada hadduu ka leexdo qofka siyaasiga oo dadka uu marin habaabin uu sheego waa arrin dhibaatadeeda iska leh anigu madaxweynihii hore oo Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka hadee waa niman meesha soo xukumayay haddana weli rajo ay kusii jirto ayaga waxay rabaan ha sheegeen laakiin nin hoggaanka Jubbaland oo cusub baan noqon rabaa iyadoo isbedel doon sheegtay inuu maanta yidhaahdo asaga iyo xidig asaga iyo seeraar iyo Axmed Madoobe isku reer baan waa markaas waa siyaasiyiin isku reer oo heshiiyey ninka yiro hal qabiil bay ka soo jeedaan inta la yiraahdo inuu dambi u arko siyaasad xumo aragti yari xaalad aan laga sheegin waxa soo dhanbay ku salaysmaysaa aad u mahadsantahay xasan waa tahay ugu dambeyn waxaa jira siyaasado iska soo horjeeda Jubbaland in badan waxaa ka jiray xaalado kala duwan shacabku waxay aad maaragtay u rajeynayaan in siyaasadahan aadka u qalifsan in la isku imaado oo laga tashto mustaqbalka shacabka iyadoo shacabka ay xaalado kala duwan ay wajahayaan maxaa xal ah oo ugu dambeyn aad shacabka aad halkan fariin ugu reebaysaa هذا هو ما سنت حصلوا شعب كريج بلان فرت وحن ربنا نروح عديه أنا جو وسير كفرين كريم هذا بيجا بلان بناي برسنا انتريس مركلي هذا أنا تذكروا انتريس عم بنج بلان كملها مرحلة سياسية يمشي وحمر هي المركز أركينا وحنكو عن صدي إن جبلان سي وحكو صعوبة إلى يسون صحيح
aan kasii mid ahaan karin shacabka marka waxaan rabaa inaan u sheego inay taageeraan jubbalanta anigu aan hoggaanka ka ahay oo jubbaland cusub oo loo dhan yahay inay dhistaan isu diyaarinayo shacabka dantooda iyo shacabka soomaaliyeed iyo qarnimada soomaaliya intaba waxay maanta xaq u leeyihiin oo maanta waajib ah inaan taageerno jubbaland loo dhisaya in la dhisto shacabkuna waxaan rabaa inaysan niyad jabin marna aysan rijo xumaanin dad baa shaqaynayo waa la shaqaynayaa dib u heshiisiin baa la isugu imaan bulshada qaybaheeda kala duwan siyaasiyiinta iyo dhammaan stakeholderska jubbaland waxay isugu imaan doonaan shir loo dhan yahay waxaana la dhisan doonaa jubbaland loo dhan yahay oo qaranka soomaaliya ku tiirsan oo ummadda soomaaliyeed ay raalli ka tahay oo goori goosad ahayn oo gacan shisheeya aan lagu maamulin yaa la dhisi doonaa insha allah shacabkana waxaan isku duubnay ayaan ugu baaqayaa inay sameeyaan gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan jubbalandtaas loo dhan yahayna insha allahu mar dhow ayaa la dhisayaa iyosan niyad jabin ana taageera ayada danta shacabka soomaaliyeed iyo danta shacabka jubbalandna waxay ku jirtaa jubbaland loo dhan yahay in la dhisto qaranka soomaaliya ka mid ah